war-saxaafadeed ka soo baxay hay'adda nabad-sugidda ee sirdoonka qaranka ee Soomaaliya ee NISA ayaa waxaa lagu sheegay in howlgallo qorshaysan oo ay filisay hay'adda NISA oo kaashanaysa saaxiibada caalamiga laga sameeyay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Howlgalkan ayaa waxa si gaar ah looga fuliyay deegaan lagu magacaabo Ukunji. War-saxaafadeedka ka soo baxay hay'adda nabad-sugidda ayaa lagu sheegay in howlgalkaasi lagu qaarajiyay horjooga sare oo ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab, waxaana horjoogahani lagu magacaabaa Maxamed Cabdi Dhiblaawe Afrac, kaasoo hay'addu ku sheegtay in magacyo kala duwan oo afgarasho oo ku dhex lahaa gudaha dagaalamayaasha Al-Shabaab. Sidoo kale war-saxaafadeedkan ka soo baxay hay'adda nabad-sugidda ayaa lagu sheegay in horjoogahan uu ahaa maskaxdii ka dambeysay qaraxii ka dhacay isgoyska Ceelgaabta, kaasoo lagu beegsaday kolonyo la socday madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud 18 bishii Maars sanadka 2025. Hay'adda ayaa sheegtay in galabtay lagu bartilmaameedsaday deegaanka Ukunji gaari nooha uu la socday horjoogahani, isagoona ugu dambeyntii halkaasi lagu qaarajiyay. Sidoo kale war-saxaafadeedkan ka soo baxay hay'adda nabad-sugidda ee sirdoonka qaranka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in horjoogahan uu sidoo kale ahaa maskaxdii ka dambeysay qaraxyo fara badan oo ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho. Qaraxyadaas oo ay ku dhinteen dad fara badan oo shacab ah. Maahan markii ugu horeysay ee howlgallo noocan oo kale ah hay'adda nabad-sugidda ay ka fuliso gobolada dalka, kuwaas oo lagu qaarajiyay horjoogayaal iyo sidoo kale maleeshiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab.